haddii aad dumar tahay halkani waxa aan kula wadaagayaa 10 arrin oo kobcinayo caafimaadkaaga iyo quruxdaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabi meel walba joogtiin kusoo dhawaada channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Hussein. maanta waxaan idiin wadaa 10 arrin oo ka saacideynaysa ama ka caawinayso maaragtay aad waqti walbana aad hagaajin kartid quruxdaada iyo caafimaadkaaga haddii aad haweeney ama aad dumar tahay ka saacideynaa. 10kani shay waa maxay? shayga ugu horeeya waxa waaye mar walba ka taxadir ama caafimaadkaaga guud mar walba ka warhay. caafimaadka guud waxa waa qof walba waxa uu jecel yahay caafimaadkiisa inuu taam u noqdo. laakiin sidee caafimaadkaaga aad taam ugu dhigi kartaa? shayasha aad sameyn kartid oo caafimaadka guud hoos imaanaya waxa waaye cunnada wanaagsan in aad cuntid. shayga labaad waxa waaye in aad mar walba jimicsiga ama exercise-ka aad hagaajisid. taanki aad dhakhtarkaada ku xirnaatid oo baaritaano lagu sameeyo oo mar walba caafimaadkaaga aad ka warhaysid oo dhanka guud ah. arrinta labaad waxa waaye ha israacsanin waxa ay dadka kale ay ku dhaxayaan ama waxa ay dadka kale ka sheegayaan haddii aad gabar dumar tahay. maadaama aad dumarka ay la kulmaan xaalad ama ay maraan xaaladooyin kala duwan oo dunida inta ay joogaan ah. laakiin haddaad israacsisid qofka kale waxa uu sheegayo murug iyo waxa kugu soo kordhayo maaragtay stress aad xamili karin. dadku way kala duwan yihiin, qof walba wax buu ka sheegayaa laakiin dhig ha u dhigin waxa ay dadka kale ka sheegayaan. arrinta saddexaad waxa waaye mar walba ka warhay ama tixgeli caafimaadka maskaxdaada. maadaama anaga aan aaminsanayn maaragtay in cudurro ay ku dhacaan maskaxda, cuduradani waxa ka mid ah cudurrada maaragtay walwalka sida loo yaqaano depressionka, niyad jabka sidoo kale iyo schizophrenia iyo waxyaalo kale oo kala duwan. haddii aad ku dadaashid caafimaadka maskaxda ah mar waqti walbana aad ku xirnaatid dhakhtarkaada maskaxda ah sanadkii hal mar laba mar haddii aad dhakhtarkii u tagtid xaalkaaga la ogaado wax ka wanaagsan ma lahan haddii aad dumar tahay. arrinta afraad waxa waaye haddii aad gabar dumar tahay ha yeelanin wax balwad ah. balwadu waxa waaye wax dumarka dhulka la galo eber ka siiyo, maadaama ay balwadani ay dhibaatooyin badan ee jirkaaga ku keeni karto. dhibaatooyinkani waxaa ka mid ah heart problems, lung problems, sambabada oo dhibaatooyinkaas soo gaaro, dhankii hoose oo maaragtay reproductive systemkaada oo dhibaatooyin badan ka soo gaaro haddii aad gabar sigaar cabaysa tahay, shishada, qaadka iyo waxaasoo idil dhibaatooyin badan bay jirkaaga ay kusoo kordhini karaan. shayga shanaad waxa waaye mar walba ka warhay xaaladda wadnahaaga. wadnaha waxa waaye qofka bini'aadanka waxa uu ku taagan yahay uu ku socdo. haddii aad wadnahaaga aad cabirin maaragtay sanadkii hal mar laba mar ayada aadna gabar aad tahay waxaa kugu soo kordhaya xanuumo kala duwan. xanuumadani waxaa ka mid ah cholesterolka oo jirkaaga ku bata, sidoo kale ischemic heart attack wax loo yaqaano oo maaragtay heart attack oo wadna qabadka oo maaragtay gabadhii ay la kulmayso. marka waxaa fiican mar walba in aad wadnahaaga caafimaadkiisna aad ka warhaysid. shayga lixaad waxa waaye joogtee miisaankaaga. sidee aad ku joogteyni kartaa miisaankaaga ama miisaankaaga sida level aad ugu dhigi kartaa? miisaanka level laga dhigayo waxa uu ka saacideynayaa obesity-ga in ay maaragtay aad la kulmin. obesity-ga waxa waaye cayilka badan in aad galin oo maaragtay jirkaaga cayil zaa'id uu la kulmin. cayilkani dhibaatooyin badan baa la socda asagana. maxaa uu ku keeni karaa haddaad qof cayilin tahay? kow waxaa ka mid ah cholesterolki oo ku darsama, sidoo kale sokor, cudurooyinka oo sokorta inay kugu dhacaan ama cudurka macaanka sida loo yaqaano inuu kugu dhaco. waxaa kaloo kugu dhici kara cudurrada wadnaha iyo intaasi in ka badan. maalintii ama isbuucii isku day in aad 3 mar aad jimka aad aadid. aad jimka maaragtay 30 daqiiqo ilaa iyo 1 saacadood aad maaragtay waqti session aad qaadatid oo maaragtay inta jimka joogtid 1 saac ilaa 2 saacadood way kugu filan tahay. hataa 30 daqiiqo maalintii inta jimka miisaankaaga aad level aad ka dhigaysid inta way kugu wanaagsan tahay ama way fiican tahay. toddobaad waxa waaye in aad joogtaysid caafimaadka dhanka xubinta taranka ah. xubinta taranka dumarka 80% dhibaatooyinka ka soo gaaraya dhankani waxa waaye cudurro kala duwan in ay gabadha ay ku dhacaan.
waxaa wanaagsan haddii aad maaragtay screeningka aad martid sida maaragtay cervical cancerka cudurrada yaryar inaad iska daaweysid sida maaragtay infectionka ku dhaca dhanka kaada mareenka, sidoo kale yeast infectionka haddii uu kugu dhaco iska daaweysid, bacterial vaginosiska iyo intaasi in ka badan sida cudurrada burooyinka ku dhaca minka. intani oo idil waxaa wanaagsan in aad iska daaweysid maadaama ay ku xiran tahay caafimaadkaada iyo qurxintaada oo jirka ah. haddii qofku uu xanuunsan yahay oo meel uu ka xanuunsan yahay, wax caafimaad ah ma helayo, sidoo kale qurxinta jirkaadina maaragtay sida aad ka rabtay ma noqonaysid. sheyga sagaalaad waxaa waaye joogtee maaragtay in aad mar walba aad ka warhaysid caafimaadka lafaha. caafimaadka lafahaaga waxaa waaye wax muhiim ah maadaama ay jirkii gabadhi mar walba isbedelayaan hormoonada sida estrogenka, progesteronka. kuwani hadday jirkaaga ay ku yaraadaan oo qof dumar aad tahay, waxaa kugu dhacaya in calcium levelkaagana uu hoos u dhaco. haddii uu calciumka jirkaaga uu ku yaraado, marka waxaa kugu dhacaya lafihii in ay maaragtay jajab iyo maaragtay lafihii ay easily ay ku jabaan. tanna waxay ku keenaysaa dhibaatooyin badan. mar walba waxaa wanaagsan sidoo kale in aad calciumka levelkiisa aad iska ogaatid, markaa kadib aad haddii uu calciumkaaga okay uu yahay khalaas wax dhiba ma lahan. laakiin haddii uu calciumkaadi uu yarin, waa inaad calciumkaaga soo kobciso maadaama ay noloshaada iyo caafimaadkaada iyo quruxdaada jirka ay uu ka saacideynaya calciumka. sidoo kale ugu dambeyntii sheyga 10aad waxaa waaye in aad qaadatid waqti walba folic acidka iyo ironka. ironka waxaa waaye isagana macdantani, labadani macdan waxay ka saacideynayaan dhiig yarida. shay weli gabadha markay uurka ay tahay haddii ay qaadato, waxa ay ka ilaalinaysaa cunugii in uu maaragtay dhibaatooyin kale uu la kulmin sida tube defectka iyo waxyaalo badan oo intaasi u keeni kara, iyo gabadhii inuu maaragtay dhiig yaraan uu ku dhicin. dambeyntii gabagabadii gunaanidka barnaamijka waxaa waaye boqolaal nooc ama boqolaal shay baa jirta oo qofka caafimaadkiisa uu ku ogaani karo, laakiin qofku waa in uu asaga istixgeliyo oo maaragtay caafimaadkiisa ama caafimaadkaaga haddaa aad gabar aad tahay aad ka warhaysid waqti walba. asxaabe, waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanidka barnaamijka. fadlan meel walba joogtay subscribe, like, share ka iloowina. waxaan idin rajaynayaa sidaa iyo nabadgelyo.